السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داود يا المال كستو أدقى داونيسان وبرنامجكي ضباط كيجيس كأفريقيا وهذا يقول أبو برتين تلفزيون كورسن. هذا برنامج كضباط كيجيس كأفريقيا جودهم بوحنا كسوق هذانا وحيابها أبو معجزة بدن يكدعاء جيس كأفريقيا. ورئيس الله يا شيء أنا الله يا لأن يوريه أنا الله يا شيء وزير كعشان ديك سوماليلاند مدن عبد الله علي إبراهيم. حكومة دهان إلا هذا المحاط قوتين أما إذا قشيء سنسي على وصول البلد هذين بكاس الأفراش. الحكومة دهان أنا قشاي وندون ده هي وأنا نصف اللي بيحيى أنا كيل لهين. وإحنا ديار سان هربك وقشينا وضيال وحجرة ديجان كمل يا وحيا أنت نقعد سنين على بالمرتين يجد كعنده سنو سي قاب وانا سنو اللي بتكليه وحي قدماته لكن أنا وحي دي واجد النساء هرنا ونقول ديار كروني من هذه الله بدأ مركها وعلى شيء إن مراكب شمال لو بعد كان أنا بدأ يضرب تري حلقة قيد لوكاسي أي كويستان بعد وين كان صوت باشي مركز سوماليلاند بكم الله حريدين يناس قارضة يقول لي أنت تشمل والله حريدني إدي تدخلنا كتستانا والله حريدني حريد شعنا والله صممني halka wax marayaan sidii xaaladdu tahayna waa la socodsiinay waxa muhiim ah in la fahmo oo la ogaado sidee baa ugu fududahay wax loo soo qaban karaa miyaa la weeraraa miyaa la wada hadlaa miyaa la duqeeyaa maxaa la faa'iidayaa okay marka maanta la duqeeyo waxa loo yimi ee loo qayla dhaansanayo ciidamo tiro badan iyo kharash tiro badan aan u qalo waa in la soo badbaadiyo dadka aan dhibaatada geysanaya iyagii la qafaashay haddii bas dagaal dhaco ma jirto wax garanti ah oo anaguna wax ku soo badbaadin karnaa cid kale oo weerarta ama duqeysana ay ku soo badbaadin karto marka anagu mar walba waxaan ku fikiraynaa in dadkan iyagoo aan dhibaato gaarin oo maaragtay caafimaad qaba gacanteeda ay soo galaan intii ay ka soo jeedeen meesha ay qaadeen loo celiyo laakiin haddii dagaal dhaco xaaladdu saas u iska bedelaysaa xabaduna ma taqaano qofka ka bayro qofka ku dhac meeshana wax weyn iyaguna way isaga dhigayaan oo nin qof binaadam dee u bareeray inuu dhibaato gaarsiiyo xabadda iyo dhibtii uu dareemayo inuu isaga gaarsiinayo marka xal ma aha in la duqeeyo ama la garaaco ama lagu degdego xabad inay bilaabanto qolada Puntland iyagu waaba ku bilaabay dhibaatada waa kuwii maartay waxaan geystay waa kuwii garab sabooraya garab taagan kuwan maartay dhibta geystay way jecel yihiin in dhibi ka dhacdo oo ama ajnabi ku dhinto ama dad muwaadin ku dhintay meesha isla qaraxdo way jecel yihiin سبب أطول لوجه هرتجي دباتين كاسو كريواي ومركي وهرسين وأرنا أما مركي لبعض الناس كنا مركز سبب لوجه هرتجي كراسو مالها أنا هرتجي كرنا إيه دت أنت لسوق باش لا لسوق لا حقيقيا معها مركي كواد مرر بدن بين الصوم مرتين أما وحلا قفاشو أما وحلا دلو أما مركي جد إنسان أما دباتو جيسن لو وحيا اللي يسمى لامبولس بيد وحويا إن سيدا أقوم معقول سن ما كران سايقنا لقول بعدين كرو دماغنا أنا أقول إن لو ظهرت وإحنا لو ظهرته إن سياسة الدول كلها هنا ويعدها هو مد وطالع وما كران ساعة فلنتي ذي وقتي هذا أوكي حقيقة معها إن سكول على جنب غيره مش هو جودها Somaliland هبوا دواتو حاجة من كتير حكي ده هبوا دواتو وحنو كبقينا معها سكول waxaan ku fikiraynaa in la badbaadiyo dadka aan dhibaato geysan oo aan meesha wax dhibaatooyin ka dhacaan iyagina aan noqon kuwa ku dhinta ama kuwa ku dhaawacma oo dhibaatadii haysatay mid ka badan loo geysto taanu ku fikiraynaa ilaa maanta nagan suuqina waa taas laakiin isku dhac ciidan naga hor yimaado oo magaranaysa arrintaan uga kadaalinayna ama aanu isleenahay way dhacaysaa ma jirto waa tahay kaas waxa ahaa wasiirka gaashaandhigga Somaliland oo ku yeelay arrinta ka jirta buurleyda calmadow halkaasi oo lagu qafaashay toddobaadyo ka hor burcad ay ku qafaasheen dad ajnabi xubinta ugu dambaysa oo markaasi guud ahaanba aan wax kaga eegi doono barnaamijka toddobaadka Afrika ayaa waa geeska Afrika dagaal qaraar oo ciidamada Itoobiyaanka ay xoogga ka soo horjeeda ku dhexmaray gobolka Hiiraan iyo Feerfeer ayaa dagaal qaraar ayaa ku dhexmaray ciidamada Itoobiya iyo xoogga ka soo horjeeda joogitaanka ciidamada Itoobiyaanka xadka u dhaxeeya gobolka Hiiraan iyo Feerfeer
kaasoo markaasi la xaqiijiyey inuu soconayay muddo lagu qiyaasay 30 daqiiqo. xilligaas Itoobiyaanka weerarka lagu qaadayay waxa ay marayeen buurta loo yaqaano Dibiga oo u dhaxaysa Kalabeerka iyo deegaanka Feerfeer. afhayeenka u hadlay ama ka hadla markaasi howlgallada xoogaga ka soo horjeeda joogitaanka Itoobiyaanka ayaa guud ahaanba waxa uu xaqiijiyey in Itoobiyaanka waa ninka lagu magacaabay Cabdiraxiin Ciise Cadow in ay ku qaadeen weerar kedis ah isla markaasina halkaasi ay ka gubeen 8 gaari oo loo yaqaano uralka, waxaana gawaaridaasi saarnaa marka la gubayay meydad iyo dhaawacyo badan oo dhowaan Itoobiyaanka loogu geystay dagaalkii dhowaan ka dhacay gobolka Hiiraan. intaa waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii toddobaadka ee Geeska Afrika. barnaamijkan dib intaan u kulmi doono dhammaanteenba waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh.